السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما نطلقوا عن كل دوبنا عشان تصاب سنة indicators إن شاء الله ما تروح تلاقي دونا indicators يكون عامسن يكون مهم سهو استعمال بدل ما نلاقي دونا من قبل بيروي دونا إن شاء الله كوا استعمال بدل نتكستو حليق دونا هي محل استعمالها. واي هذا إنه كون يجي دونا وحكم دونا هرين دونا move نفريت هو استعمال بدل هو استعمال بدل كم ده قلنا مهمة بدن كم بدنا indicators إن ADS RSI MACD يقرأ كل عرض دونا إن شاء الله دكار دونا أي نسلك دونا إن شاء الله إما جو حني فيديو ونكتب دونا سان فيديو جو دران فهو رأينا في دونا move نفريج يقول لي هاي النوعية سا أب الله استعمال أنت كل نسلك دونا إن شاء الله واي move نفريج سيدا indicators هذا كلام وذهان حلو استعماله إنه ينوش شيئا أما ينوش هذا ليا future prices prices كمستقبل ماشي هذا أي واحد ينوش شيئا ينوش هذا اللي واحد ينوش شيئا يعني إحنا نوش تيمين يعني اللي كتبوا أنا ما أنتوا مهم كانوا يكسبوا هني الله استعماله سيأتيك كانوا يسكتوا ينوش شيئا حاول يستخدم حلا يستخدم قرنا يا price كي أما history of the price كهورة months weeks days كهورة أما hours كهورة أي الله يستخدم المسلمين يسيلوا قالوا ليش هذا weeks كبيرة months كا أما hours كا minutes كا كبيرة سوق السين مو بانكرنا روح هو بانكرنا ما رضيش ليش هذا أي الله استعماله يا تين كانوا استعماله يا كقول مهم سن تيجي نالس كلا خبر تو حبوي ودي كيتريسكا ويو حكوا شيء يا كونا يكتمل يا كيتريسكا بقول معها بيتكستاوا وحولي هي ميرو سترونج كي هي ميرو ويكنس كي marka waxa laga rabaa inaad asha trader tools kaaga basato mid kasta aad barato waxa loo isticmaalo meeshu ka awood badan yahay xilligu fiican yahay la isticmaalo sidoo kale aad ogaato mid kastaaba xilliyada uu aanan strong ahayn ama la isticmaali karin yaa daraadeed mid kastaaba xilligu ka awood isticmaalsa markaa inaad dhammaantood barataa waa muhiim waay هذين كبرنا موفن أفريج يوحي هاي نالكن إسلاجنا موفن أفريج كتير موفن أفريج وحده حنوش يا فيوتشر برايس أو مش برايس كذا يعني قبل نعقله بسماء سيمبل موفن أفريج ليه هذا يغال ليه هذا إكسبوننشال موفن أفريج هو سيمبل موفن أفريج أي لو سكابي SMA بالله سكابيه قيبت اللباد waxay leedahay waa exponential moving average ويستغنى waxa loo soo gaabiyaa EMA moving average exponential way kalabada hada aragto SMA hada meel ku aragto hada EMA ku aragto waxa loo jeedaa maxay labaduba waa moving average midna waa symbol midna waa exponential way yara kala dibayno xagga isticmaalka waa just wax badan kuma kala duwana qaabka lagu kala guriyo qaab iska reference laakiin adigu waxa laga rabaa kaliya inaad ogaato kugu filan muxuu yahay maxaa loo isticmaalaa iyo qaabkan uu isticmaali lahaa ayaa muhiim ah marka inaad adigu ogaato labada qaybood guud ahaan buu kala baxaa simple move average iyo exponential move care exponential ka ayaa care dambeeyay care smart san kaliya laakiin se waxa ka uu isticmaalka badan waa exponential ka moving average ayaa isticmaal badan marka way dhammaan si indicators kala dhan suurayna halqa way halkaada inuu trading view weyn ay isticmaalaan walkan uu isticmaalano waa dashboard ka waxa shaqada uu isticmaalo technical analysis ka si badan uu isticmaali doono haddii sida kooban yar dul marno inuu soo celino dadka video la qabsan doona halka waxaan ku aragnaa waa lacagihii marba ama beeriska aan marba analysis ku sameeyo marka suuq oo dhan hal mar ma la isticmaalo lacag kastaaba marba lacag gaar ah specific ay analysis ku sameeyo halka marba lacag kan rabo ayaan analysis ku sameeyo halkan waa time frame kigi halkan waa candles ka marka iska bedelayo halkan waa indicators halkan uu socnaa waa halkan oo meesha ka soo tusay dhammaan indicators baa halkan ka soo darsan lahaa way trade view-ga sidaan u arko way indicator baa ku soo daraya hadaba أنا كذا صدر يا exponential moving average أي قرية EMA أكون كذا صباح يا moving average exponential وأكون فانا يا ما كنت درسنا يوم سيدا وكلا
سيمبل كي قيب سيمبل هذا استعماله اس ام اي وقريه ويسو بحيا سيمبل سموث بس لبدا waa isticmaalaa smooth iyo simple labadaba waa loo yeeraa way isaga oo ku dhufanaya marka isna iga soo baxaya way waa kan ab sida uu soo baxa marka moving average ab kan soo barayska dhexdiisa ka soo baxa ee negative qaarkood barayska xaggan hoose ka soo baxaan meel hoose ka soo baxaan barayska ma dhaxgalaan kan lagiisa chartigi dhexdiisa ka soo baxaya ama kan barayska dhexdiisa ka soo baxaya qaabkana uu shaqeeyaa way hadayna si kooban u dul marro properties indicator kasta wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo settings gaar ah isaga ama waxyaabo gaar ah oo marka la isticmaalayo oo maaragtay ayuu leeyahay settings gaar ah ayuu leeyahay marka way marka indicators ka ku soo darsanay qaasin ka soo darsta waa nidi exponential moving average ku qornay kadib line sidoo lagu soo baxay halkan uu inaga soo baxay marka price ka dhacayso ayuu ka soo baxay marka way halkan hadaba hadaynu nimaado waa properties hadaan doonaan kala saaro ka calaamada delete baa ku dhufanaya hadaan rabo inaan format ama input settings kiisa waxaan indicator ka saaw settings buu halkaas tagaya format ku qoran tahay laba qodob uu leeyahay input iyo style way input kalka waxaan gelinayaa waxa la yiraahdo halka length ku qoran tahay waa period marba oo la rabo inuu moving average kaasi ka qiyaas qaato waxaan nidhi indicator-ku history-gi past price history-gi study ku sameeyaa sida uu future price-ka go'aan u gaari karayo marka halkan marba laga iska period ka isticmaalo soo doonaysa go'aan laga gaaro ayaad isticmaalaysaa imika 9 baa ku qoran taas 8 ku qoran waxay ka dhigan tahay period kiisa halkaas 8 baa ka soo isu bedeshay marba kaas ka period kiisa way haddaan ka dhigo 30 halkaas 30 bay ka soo baxaya way 8 kan waxaan ka dhignay 8 bay ka dhignay halkan style-ka waa color-ka marba siinaysa doonaysa inaad siiso blue baa masii strong baad xidhi karaysaa okay haddaan dhaseen ugu soo baxaya marka moving average waa kan price ka soo dhaxay haddaba waa yahay maxaa loo isticmaalay ujeedadiisu waa maxay maxaa laga leeyahay way halka hadeen islaagna hadaba qaabka loo isticmaalayo hadeen islaagno waxa weeye moving average ka laba qodob baa loo isticmaalaa kaliya ayaa loo isticmaalaa laba qodob oo kaliya ayaa loo isticmaalaa then you know how to trade with moving averages moving averages see lagu tiragarayaa marka haddii ogaano moving average wuxuu yahay isla garanay labada qodob aynu meeynayni in ogaano kow wuxuu yahay lamar laba how to trade qaabka loo isticmaalayo isla ogaano laba qodob baa loo isticmaalaa qodobkooda waxa weeye as a dynamic support and resistance waxay u shaqeynayaan qaab sidii waxay ugu shaqeynayaan qaab sidii support and resistance ayay ugu shaqeynayaan marka dynamic support and resistance dynamic support and resistance adoo maxaa looga jeedaa dynamic support and resistance waxaa looga jeedaa support iyo resistance ee naqaanay normal ka laga sii waa dynamic way isu bedelayaan waxaa loo jeedaa price ku markuu sida yahay moving average ku ka sareeya down trend marka lagu jiro moving average ku ka sareeya price ku ka sareeya ama candlestick ku ka sareeya wuxuu shaqeynaya as support as resistance ay ku shaqeynaya ku ka sareeya marka up trend lagu jirana balaag price ku ayaa sareeya waxaa hooseeya moving average markana support ku shaqeynaya ulufis markasta suuqa up trend ku jiro hoosta ayuu maraya markasta suuqa down trend galana korka ayuu maraya sida halkan deenayna halkan up trend ku jiro hoos maraya korku maraya way suuqa markuu condition ku jiro price ku dhex mara candles ku dhex maraya lagiisi waxaan doonaynaa inaan markuu ku jiro up trend toos ku jiro sida halka formalka to halkaas suuqa wuxuu ku jira up trend way halka laga bilaabo ilaa halka moving average kiina way aragnaa uu ka hooseeya
وشغالين يا سبورت تسكرنا يا وتسكرنا يا وتسكرنا يا مرة ما نافيو واي ما مرة سوق أبتر يقول مرة كنا أبتر يقول ترى سيدا مرة كاني مكال كاني نوع مقطع واي سنوا كان وكسر يا أصلا وشغالين يا أصلا ريسيستني ساهم يوشغالين يا وملا برايس كتير جيل لي مرة وسند دافع لك صنع غير مرة كصنع غير أدو كرك هوس كم مرة نوف نافريجو هوس يانا واسع وشغال ما أبتر ما كان يجرب أساس سبوت وشغالين يا سبوت واي وقعد بهذا الله استعماله دايناميك سبوت أن ريسيستنس وشغالين يا قاب سبوت أن ريسيستنس دايناميك هو يسبدليه واي هذا كله لبعض الله استعماله وحويه هو استعمال بدنا وحويه وتو موفين افريج كروس ولا مو في افريج ما قيس كروس قريا واستعمال كلمات كله استعماله موفين افريج وكان بدنا استعمال بس بديه هو واي لما يجي قلت بالله استعمالي وتو موفين افريج يلا سلا استعماليه لكن يكسر درنا بنشال موفين افريج كله وأقول نفتي هذا نيس نيس أوكله وأكل by default تنايم بوسيا ورما تلقى ريك بدل لا مني لانجس كيسا وحكي دقيقة سد حتى تسالة واحد دونا كده يكري يوم بدل كنا كده بابا كده جاي سرون كده مالي واي سنو وأكل لقاب كانوا شقي سنو صباح حينو مو في نفرت كي سنو برايس كسر له بحي كلا كلا دول مو في نفرت ولا سلا استعمالي أمريكا واي أمريكا لا سلا استعمالي وجدة لقى يهدا وام حي جدا لقى لي وحوي مو في نفرت كروس marka laba mufrad la isticmaalayo waxa shardiya inay labada mufrad average kala weeyeen waa inay labada mufrad average kala weeyeen midna weeyahay midna yar yahay ilo mufrad la isticmaalayo markasta waxa qasaba in mufrad average midna weeyahay midna yar yahay ala xaloojeeda mid periodkiisu ma yahay midna periodkiisu yar yahay way inta tusaale waxaan isticmaalay add exponential mufrad average midah yimidah 13 exponential mufrad average دوائر من هو صدقت كنا وين كنا يلا كان هو small وكيرا كان هو large هو move نفرج كا كوي واي عدينا هنا مركز تا كان لبدا move نفرج كير أما small كها إيرك كم خصبني على استعمال كده 20 كنا 15 أيام استعمال كريه 50 وان استعمال كريه مركز كانوا سمول كي كانوا لارج كي طيب مركز waxa la move average ka yari waxa la dhahdaa xawey waa fast waa ka dheeranaya markas taba oo faster move average ay la faster move average oo move average dheeranaya ka gaabiyana waxa la ama ka weyn move average waxa la odhanayaa waa larger move average ay la dhahaa move average ka weyn waxaan u jeedaa halkan slower moving average is lower oo barayska si dhaqsaan ula janqadin si la rabeen mar maartay barayska ula shaqeynay balalkan ay inka laba average dan ay waa 8 waa ka kala isku group yahay aan ka dhigay kalarkiisa xagga axtarisa barayska hortiisa groupka kan tradingka ee larger kana waa red waxaan idinkaas ka weyn markastaba waa slower inka tradingka ayaa slower loo fiirso adarkiisa markastaba u dhawaanaya xagga price ka u dhawi waa ka faster ka dheeranaya ka group gaaba faster marka down trend u jiray xagga price ku xiga marka up trend u jirana xagga ku xiga price marka sidaas ugu dhow laadeen si weynana baraaga trading way markastu si weeyahayna price ku ka sii fogaanaya kan trading ka hadaan 50 ka dhigo walo fiirso waxa dhacaya way ka sii durkaya markasta uu ka sii durkaya oo price si dhaqso lama jaan qaadaya halka kani markuu soo laabay kan laabitaankiisu waa yar yahay markan meel kasta laabitaanka sameeyay kan male waxa la yiraahdaa waa steven markasta waa leenkiisu waa yara toosan yahay laabasho badan mar hadduu yahay moving average aad u weyn price ka si dhaqso lama laabanayo marka waa si lower baa la odhanayaa wuxuu tradingkii markasuu yar yahayna xagga price ka uu sii dhawaanaya balaag laakiin kii ka yaraayo group yahay markasta uga sii dhow أنا تايم هدي up trend لجيران وقدو هدي down trend لجيران وقسيدو labada jeer ma ugadho iyadoo taa la ogeeyay ayaa laga faa'iideystay qaacida odhanaysa
laba moving average markay iskoras gareeyaan badanka waxay sameeyaan wax la yiraahdo trend baa biloomaya waxaan in suuqu saddex nooc weey suuqu state xaaladda suuqu galaa waa saddex suuqa xaaladiisa badanka waa saddex market structure suuqu guud ahaan waa saddex xaaladood oo maruu uptrend ku jiro iyo maruu downtrend ku jiro iyo maruu ku jiro consolidation ama ranging ku jiro suuq labada xaaladood mid aan ku jirin si hajana dharashigiisu kor ahayn hoos ahayn uptrend suuqu markuu kor socdo hajana dharashigiisu yahay kor downtrend markuu suuqu hoos socdo hajana dharashigiisu hoos yahay consolidation oo markuu suuqu aan jahdiisu aynayn marka ay tahay ama ranging ku jiro yahay marka labada jeer ee muhiimka ah inuu ay rabnaa inaan ogaano mar kastaaba as a trend trader marka doonaysa inaad ogaato waa suuqu markuu uptrend yahay iyo markuu downtrend yahay inaad labada jeer ogaato ayaa maartay ayay ku jirtaa lacagtu marka aad ka sameynaysaa meesha lacagta ka sameynaysaa oo uptrend suuqu markuu yahay hadda markuu trend bilowmayo uptrendku aan helana marka lacag baan ka sameyn karaa suuqa sidoo kale markuu suuqu hoos ama downtrend ku jirana haddaan ma helana markaana aan sal ku galaan si raaco suuqa markana lacag baan ka sameynaya way labada indicator ku sheegay inaad ogaatana waa labada waa inaad trend goortu bilowmayo ayuu ku sheegay doonaysa inaad ku ogaato markaa way dadku ku noqon halkan walaalkan ayga markaa trendigi markuu bilowmayo saan ogaada hadaba waxaan u baahanahay number 1 moving average cross haddaan arko moving average aan isticmaalay laba average la isticmaalay the first area inay slow yahay markastoo aan arko inuu crossing dhacay ama laba average cross gareeyay waxaan arkayaa markaa waxaan ogaanayaa in suuqu trend biloway trend cusub biloway way haddii uu suuqu down trend gelayo sida halka ka muuqatay imika halka inooga muuqata sida halkan bay inooga muuqata halka hadda inooga muuqata suuqu crossing uu sameeyay halka imika halka laba average cross sameeyay ki buluuga ba hoos soo jaray ka buluuga ah u fiirsada kalar muhiim ah hada samaysan kale ka dhaqaa doonto waagis waa keer kaay waa ki slower ka faster ka ha dheeranay hoos buu soo jaray haduu hoos u jaray ka faster ka hoos u jaro ka faster ka markaas taba go'aanka saxda sheegay haduu hoos u jaro ki kala u jaro hoosna u dhaafo waxa la odhanayaa down trend suuqaasi bilaabi raba suuqaasi down trend galay way hadii uu kor u jaro sida halkan bay inooga muuqatay imika sida halkan bay inooga muuqataa ayna aragno kii faster ka wuxuu sameeyay kor buu jaray inuu suuq uptrend gelayo uptrendkaas ma hubo inay waqti dheer qaadanayso inay waqti gaaban laakiin se waxaan ogaanayaa in uu suuqaasi trend bilaabay trendguna yahay uptrend mar hadduu kii faster ka hay kor u jaray sida halkan bay inooga muuqataa meelo fara badan halka cross baa ka dhacay halka laftigeeda cross ma ka dhacay waxaan ogaanayaa markaa inuu suuqaas halkaas trend gelayo way ayuu noo sheegaya marka soo arko moving average kii faster ka oo hoos u jaray kii kale slower ka waxaan arkayaa in suuqaasi down trend gelayo moogi in waqti dheer si soconto trendiga strong yahay inay tahay trendi kooban oo waqti yar soconaysa weakness ku leeyahay isagu taasi inaan ku sheegay strong trend gani wax walba soconaya ama soconayo waxay isticmaali doonaan negatirada kale ayaa confirmation loo isticmaali doono marka isagu intaas ku sheegay ku ogi crossing marka wuxuu noo sheegay moving average qaabka labada loo isticmaalo moving average ko labada qodob bay nidhi number 1 waxay nidhi as dynamics support and resistance waxa uu shaqeynaya qaab support and resistance ayuu shaqeynaya soo kale two moving average wuxuu u isticmaalka badan ah laba moving average oo mid weyn yahay midna yar yahay توين كير smaller وانا faster moving average كوينه waa larger waa slower moving average markasto slower moving average ka yari crossing sameeyo faster moving average soo kor u jarayna up trend hadii faster moving average hoos jarana waa suuqaas waa down trend waxaynu u baahanahay inaan ogaano waa trend xilligu bilowmay hadaan helno markaas ay lacag sameyn karnaa markaa way وقدم كلمات الله استعمالية مركا مركز توسين أرنو كروسين ودعي
waxaynu garanaa xilliyada qaarkood baa jira weakness ku leeyahay xilliyada wax ka mid ah xilliyada qaarkood weakness kiisu yahay soo crossing sameeyay suuq waan trend fiican kala crossing buu sameeyay kii hoos uu soo jaray markaba haddana uu soo noqday haddana markiiba hoos markaas oo kale suuq wala iska ilaaliya oo markuu ku jiro suuqaasi ku jiro range ama decision ku jira wali go'aan sax ah suuqaasi male halka wada arkaysan suuq range buu ku jira markaas oo kale isagu haddii crossing aad aragto markaba ku degdegaysa taas waxay ku cadeynaysaa in moving average kaliya la isticmaali karayo oo u baahan yahay tools kale ama indicators kale ama waxyaabo kale aan u baahanahay inay markaa caawiyaan si aan iskaga xaqiijiyo in crossing kale yahay kii runtaha ee dhow trendiga fiican sheegay iyo mid aan trend ahayn suuqu decision ku jiro yahay kii kala sheegay markaas kale waxa la yiraahdaa fake out uu sameeynaya inaan wax jira aan ku sheegin laakiin waxaan jirin buu ayuu markaa ku sheegay markaas oo crossing sameeyay baad haddana ayuu suuq trending galay markaas kale aad digtoonaata marka waxaad u baahan tahay indicators kale oo kaliya la isticmaalay marka insha Allah video ku xigeen ma doonay fadiga inuu dheeraado video ku xigay inay doonaa bal indicators kale la isticmaali karayo si loo xaqiijiyo crossing kan inuu yahay crossing trending sheegay iyo kii aan sheegaysa inuu kala gaarno indicator ku xigeen la isticmaali doonaa insha Allah intaas aynu kusoo koobanaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah video dambe ayaan la socon doonaa insha Allah